السلام عليكم. magacaygu waa Mustafa Cabdullaahi Sheekh oo loo yaqaano Mustafa Khan. waxaad ku soo dhaweynayaa Somali Youth TV. casharkani waa cashar la xiriira web design ama website la xiriira. Okay. waxaan rabnaa inaan ugu hadalno jumla. casharkani haddii wuxuu ku anfacayaa haddii website-kaaga uu ku shaqeynayo jumla ama aad leedahay website jumla ku shaqeynayo ama ku dhisan amaba aad tahay qof jecel inuu barto jumla amaba qof wax aqoon u leh amaba fikrad ka haysta jumla data casharkan ku anfacaya laakiin dada jumla aan aqoonin marka kale in wax ku taray uma maleynay ala kulli hal mowqacan waxa iska leh jumla naftarkeeda iska leh labada waxay haystaan laba version kan oo ah 3.2 iyo 2.5 kan uu cusub yahay waxaan u maleynayaa dhowr week ka hor wuxuu ahaa 3.0 ayuu ahaa hadda kana soo baxay marka labada kale jiri waa labada nooc ayaa jiro marka waxa laga yaabaa inaad tiraahdo hadduu noocan jiro oo noocan cusub yahay kan maxaa loo baahan kan maxaa la isaga dhaafay waay kan sababta la isaga dhaafaya waxay tahay kan iyo kan way kala duwan yihiin kanna wuxuu leeyahay nooc kana wuxuu leeyahay nooc kale oo kana tusaale ka hadlayo hadduu sidkan aragtaan waa nadiif waa jumla waxba kuma jiro waa default waa sidii markaasi oo si directly loogu shubay marka waxa la lahaa marka fresh install la lahaa installation marka waa kan waa 3.2 waa kii cusba kan qaabkan ay u yeelaa hadda ana ku jiro waa ka baxaya qaabkan waa marka 2.5 noocan ay u yeelaa marka ninkana ila fiican xoogaa 2.5 ka fiican qaab ahaan ila qurux badan noocan ay jiri marka nooc labadaba hadda way jiraan marka adoo kan haysto ama qof kan haysto uma baahna kan inuu soo laabto laakiin qofkii kan haysto 2.5 dadka qaar update sameeyaan kan ay u soo laabtaan markaan waxaan rabaa inaan idin sheego sidee loogu dhigaa حتى واحد انتو سيا باك انديغا دنبا idintu سيا sidii u kala duwan yihiin gudaha markaa gashid administrator qaabkan waaye kana waa waxa waaye hard drive-kayga waxa waaye gudaha local aan isticmaalaya gudaha ah kana waa website-kayga somaliyouth.tv.com kana gudihiisa galeynaa okay 2.5 ka markaa gashid back endiga jumla sidan ayuu egyahay qaabkan ayaa loo galaya username passwordka gudihiisa la galay meesha gudaha laga soo dhisay aan wax lagaga dareeyay 3.2 gana sidan ayuu yaalaa marka kana qurux badan xogaa ka yar fiican kii hore noocan ah marka kana galayna gudihiisa okay kana waa galayna oo online ka galayna okay okay laakiin midaas ku qaldina kan hadda aan ku jiro 2.5 kan waa online oo saar shaashada ka aragtaan waa www.somaliyouth.tv.com waaye kana waa local computerkii ayaa ka soo kicinaya marka 2.5 sidan ay u yeelaa qaabkan ayuu leeyahay sida meesha ka aragtaan wuxuuna ii sheegayaa inuu jiro 3.2.2 update inaan sameeyo ayuu rabaa haddaad doonto iska dhaaf kartaa saan ku wadi kartaa kan 3.2 gana saan ayuu u yeelaa markaad fiiriso back endiga kan ayaa fiican gudaha wax walba kala baxsan yihiin menu manager mediaha meesha sawirada laga soo geliyo meesha article loogu daro user manager-ka module waxa la lahaa jiro ku dhisan yahay isaga markaad sameynaysid global template qaybka waa kana laakiin markaan imaano kan wax shay waxaad u maleysaa in xogaa difficult uu yahay ama uu yara adag yahay control panel-kiisa okay marka waxaan rabnaa marka kan wuuba yahayba kan 3.2 wuuba yahay anaga ma rabno kan sidaas ka ahaada ma rabno marka kan online ka ah waa kana marka anoo haysto 2.5 dadka qaar waxaa laga yaabaa inay website-ka galaan jumla ay soo dejiyaan kan recommended version kan oo ah oo 3.2 ga ah oo midka ugu cusub ah inay soo dejiyaan kii hore computerkooda ku jira website-kooda inay tirtiraan ee kaas upload kusoo sameeyaan taasna waa dhibaato marka waxaan rabaa casharka inaad ku tuso sidee live update loo sameeyaa website-kaaga soo gal
administrator ku qor back endigiis soo gal password usernameka ku qor marka halkaas soo geshid waxaan tageynaa meeshaan waxaan tageynaa jumla update-kan aan tageynaa okay adi hadda waxaa laga yaabaa hadda anaan saan ka dhigay kuma keenayo last version kuma keenayo waxaan jeclahay inuu sidan yahay jeclahay recommended save and close adi waxaa laga yaabaa sida inuu ku keeno wuxuu ku leeyahay versionka kugu jiro jumla lagu install gareeyay website-kaaga hostigaaga ku install gareeyay ama isticmaalaysid waxa waaye 2.5.17 waxa jiro ku leeyahay versionkan 2.5 marka la cusbeenaysiiyo waxa jiro version kale ku xigo ah 2.5.8 isla asigu waaye marka way isku xigaan marka kan kale shaqo kuma laha uu ka duwan yahay marka hadda update-kan xataa isticmaalo install update dhaho waxba kama bedelayo sideen qaabkan uu yahaana website-kayga website-kayga sidan oo ahaana waxba kama bedelay qaabka okay hadii waxaan qorayaa Somali youth website-kiisaan uu ahaana xataa haddii aan isticmaalo feelashan oo aan ku shubo update-ka saan oo wax kama bedelay ana marabo marka ana waxaan rabaa 3 aniga ma rabo kan layna update ku sameeyo waxaan rabaa kan version-kan inaan isticmaalo oo noocan dhan isbedela rabaa website-kan inuu isbedelo maxaan sameynaa marka back endigeedaan markaa geshid kuma keenayo 3.5 kuma keenayo marka waxaa intaa galaysaa option-ka waxaa galaysaa meeshaan ku qoran tahay update server-ka waxaa dooranaysaa short term support xaaladaha save and close way isbedelaysaa meeshaan 2.5 ka dhan waxaa rabaa inaad ka wareegto oo bedesho 3.2 ga update oo meesha ku xirma waa kana package-ku ku xirmi doono marka aniga waxaan ku dhufanaa marka halkan oo ah install the update marka waxaa laga yaabaa inuu waxoogaa waqti qaato wuxuu leeyahay downloading update file please wait marka waa waxaa inaad sugno waaye uu soo dejina serverka web hostiga ku xirma shaqo bilaaba ad waa kana updating update uu sameeynaya your jumla files please wait suugu leeyahay marka failashan update ku sameeynayna halkan qaybtan ku wuxuu ku sheegay percentage-ka aan mareyno qaybtan aan dhameynayno inta waxyaalahan isticmaalayno kulli failka inta ku socda xawaarihiisa kulli waqti dheer kadib uu gaab uu marka waxa isbedeli doono qaabkan meesha aan ku jirno dhan way isbedelaysaa waxaan rabnaa qaabkan inay isbedesho template-kana waa website-keena waxaan rabnaa inuu isbedelo uu isku bedelo jumla 3.2 inuu isku bedelo hadda waa 2.5 marka waan sugaynaa inta shaqada ka dhameynayo waa dariiqada ugu sahlan ee update aad ku sameyn kartid adigoo 2.5 haysto oo 3.2 bedela marka hal mid waa muhiim inaad ogaatid haddii website-kaaga uu ku install garo aad haystay template ku dhisan 2.5 oo website-kaasi uu shaqeynayay oo mino homepage aad leedahay oo waxyaalo ay kugu jiraan oo visit oo dad badan oo members aad leedahay website-ku ku shaqeynayo haddii 2.5 aad ku bedesho 3.2 dhibaatada imaanaysaa waxay tahay template-kaas marka 3.5 bedeshid inuu website-kaaga isku dhex qasmo ama uu ku dhaco waxa la dhahayo dhiith wax sacan la dhahayo xasay dhaan ma aqaano waxay dhaan dhiith time yani wax website-kaaga ugu dhamaanaa because waxaa laga yaabaa template-ka isticmaalaysa inuu ahaa template ku dhisan ama loogu talagalay inuu ku shaqeeyo 2.5 oo keli laakiin haddii aad soo degsatay template 2.5 iyo 3.2 ku shaqeynaya haddii website-kaaga kugu dhisnaa markaa version-kaa bedeshid oo isbedelo 3.2 bedeshid caadi uu ku shaqeynaya website-kaas laakiin template-ka waxaa fiican waxa waa 2.5 template qaas uu leeyahay 3.2 no template qaas uu leeyahay marka template waxa jira labada ku shaqeeya haddii template labada ku shaqeeya haddii kugu jiray website-kaagii hore 2.5 ka markaad update samaysid kadib website-ka caadi uu kugu shaqeynaa ma fahanta ala kulli xaal u laabana marka your host needs disable ha waxaan way jirtaa kulli waxa anaga sameey doon wax dhibaato ma leh wuxuu rabaa inaa fail aan kariyeyno ama gudaha wax laga tiro waxaan waa cilad la bixin karo ana sameyn doon marka wuxuu ku leeyahay marka jumla version update status your site has been successfully updated your jumla version is now 3.2.2 waxaan ku laabanaa control panel-ka gadaal website-kii uu isbedelay website-kii uu isbedelay data si kale ayuu ahaa taa 3.2 isku bedelay qaabka hore uu ka bedelmay oo 2.5 kan waa website-kii caadigii anaga lahayn refresh aan leeyahay waa inuu isbedelaa template-kan uu isku bedelaa template oo 3.2 ah refresh okay wuu soo kacay marka waa kaas
mayo wili waay marka baag indhiga gudihiisaan galaa waa soo bedelaa wili waay marka okay waxaan sameynaa waxaan tagaynaa template managerkaan tagaynaa waa inaa bedelnaa marka mid kale oo default waa kana waxaa default noo kii hore ee 2.5 loogu talagalay anaga ma rabna marka anaga waxaa rabnaa kanaa rabnaa marka kan inaan default ka dhigno kana default noo site hadda default style successful yet okay hadda uu isbedelaa hadda wuxuu noqonaa 3.2 waa kaasuu isbedelay saa aragtaan websitekeena waaye haddaan rabna xataa titleka inaan bedelno meesha ma jumla ay ku qoran tahay waxaan tagaynaa global global configuration global configuration meeshana bedelayna waxaan ku qoraynaa Somali youth site okay waxaan leenahay site of online no save and close websitekan ku laabanayna refresh okay waa ka isbedelay Somali youth site hadda websitekeygii waa sidan qof kasta soo booqdo Somali Youth TV wuu arkayaa website-kan sidan ay u arkaa waa Mustafa Cabdullaahi Sheekh oo loo yaqaan Mustafa Khan oo casharkan idin la socodsiinayay waxaa mahad iska leh Rashid Jijiil iyo Maxamed Tubac oo garab igu siiyay ama suurtageliyay casharkan waxaa idin soo saaray Somali Youth Productions waxaan rajeynaynaa inaad channelkeena subscribe ku sameysaan saddex waxaan leenahay YouTube channel aan leenahay insha Allah waxaan isoo dhigi doonaa meesha description ka hoos si casharada cusub oo la socodsiino haddii markaas wax su'aal qabtaan oo haddii Photoshop haddii web design waxay doonaan ha noqdaan soo weydiisaan waa idinkaga jawaabi doonaa insha Allah waa anigu idinkaga tagaysaa nabadgelyo insha Allah waxaana wax la sameyn karo hostiyada qaar ay ku dhacda wax la sameyn karo waaye aniga kulay feelan kariyada doonaa waxbaan ku qori doonaa kadib waan donsefka ugu upload garan doonaa hostiga waxaan ka baabi'i doonaa markaas insha Allah wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaam